hubeysan heertooda la garanayo habeennimadii xalay waxay weerar ku qaadeen gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom dowladan ayaa gudoomiyaha xilli uu ka soo baxayay masaajidda xafiiskiisa ay dhabarka dambe xabad ugu soo togteen waxaana soo gaaray gudoomiyaha dhaawac iyadana kadib ay baxsadeen dowladani gudoomiyaha ayaa hadda lagu dabiibayaa xarun caafimaadka ciidamada ammaanka ee magaalada Laascaanood ayaa waxay xabsiga u taxaabeen dad loogu shakisan yahay inay ku lug lahaayeen dhacdadan loo geystay gudoomiyaha iyadana baaritaano ka wada guud ahaan magaalada Laascaanood dhinaca kale mar uu la xiriiray telefishinka Somali News gudoomiyaha gobolka Sool Mustafa Cabdishiine dhacdadan waxa uu wax ka weydiiyay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan baaritaano ballaaran oo ay ku daba joogaan cidii ka dambeysay dhacdadan iyadana xabsiga u taxaabay dad ugu shakisan yihiin ku lug lahaanshaha dhacdadan isla markaana ay soo qaban doonaan dambiilayaasha geystay falkani ugu dambeyntii Cabdirasaaq Axmed Wasan oo gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom iyo gudoomiyaha ganacsatada gobolka Sool ayaa ahaa shaqsi si weyn loogu yaqaanay Laascaanood isla markaana ka qayb qaatay horumarinta iyo taakuleynta dadka dhibaataysan ee ku dhaqan magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool waxaana uu ka mid ahaa xubnaha ugu muhiimsan ee ka qayb qaatay nabadeynta shaqada ka taagan koonfurta gobolka Sool.